أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. waxaa maanta si nabad oo xasilooni ku dheehanta looga ciiday guud ahaanba deegaanada kala duwan ee hoostiga gobolka Hawd. bulshada ku dhaqan magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd ayaa tukashada salaada Ciid al-Fitriga waxaa kala qayb galay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo. culimadiinka gobolka Hawd ayaa bulshadii ka soo xaadirtay tukashada salaada Ciida Ilaahay uga rajeeyay in Ilaahay naga aqbalo acmaashii tirada badneed ee aynu soo gudanay bishii barakeysnayd ee Ramadaan. waxaynu soo baxnay walaalayaal maanta maalintii ciid al-fitrigi ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ina yiri walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadaakum wa la'allakum tashkurun. walitukmilu al-iddata tirada bisha Ramadaan tiradeeda dhameeya bisha Ramadaan soddonkeeda dhameeya soddonkii Ramadaan baynu soo soonnay alxamdulillaahi rabbil caalamiin. walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga aqbalo cibaadada siyaamkii allah haynaga gudoomo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay dartaa baanu u soomanayn, dartaa baanu u afxidhnayn, dartaa baanu u taagnayn oonu u cibaadaysanaynay, dartaa baanu xalaasha u quudanaynay, xaaraanta uga fogaanaynay. maayirka degmada Balligubadle Cabdi Iimaan Jaamac iyo barasaabka gobolka Hawd Ibrahim Ali Xaaji Xasan oo bulshada ku dhaqan magaalada Balligubadle hadallo dardaaran waano iyo wacyigelinba isugu jira u jeediya ayaa ugu horeeyay ummadda islaamka ugu hambaliyay munaasabada Ciid al-Fitriga. mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo waxa ay dadweynaha reer Balligubadle kula dardaarmeen in laga wada shaqeeyo midnimada iyo isku duubnida horumarinta gobolka Hawd isla markaana waxay mas'uuliyiintani bulshada ka codsadeen in si mug iyo miisaan looga wada qayb qaato dhamaystirka jidka isku xidhan magaalooyinka Hargeysa iyo Balligubadle. sidoo kale mas'uuliyiintani waxa ay fariin adag u direen dadka caadeysta oodashada seeraha sharci darrada ah. abaartu way ka baxaan rag baa 300 oo neef lahaa 300 neef wuxuu boqol baa soo haray neef kaliya wuxuu yeelay ufda ku dara. waxaan leeyahay reer Balligubadle xoolihii ay isku qornay aan iska bixin xoolaheena imika wayna wanaagsan yihiin waayo nin walba neef areekeen aan isku darno wadadii way taagan tahay hala bilaabaan le xooli gudiyana aan qabanno oo tuulo aan isu dirno. qodobkaas waa qodob. waxaan leeyahay oo kale beeraha wadooyinkii waa la xidhay imika bishii Ramadaan ka horeysay waxaa laga bilaabay balle cabane iyo sayla in wadooyinkii la baneeyo. taana waxaan idin sheegayaa in la bilaabayo oo beeraha wadooyinka xoolihii meel ay maraan bay waa in la baneeyaa. waxaan leeyahay dhammaantiin ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum. guud ahaan shacabka Soomaaliland iyo gaar ahaan shacabka gobolka Hawd xagga beeraha beera maahe waa ooda miyay beera jiraan waa ood weeyaan. ooda runtii qaranku wuu ka tashaday walina taladiisu way socotaa. waxaa laga samaynayaa siyaasad guud oo Soomaaliland oo dhan khusaysa. waa loo tashanayaa sidii ooda loo baabiin lahaa taladeedu way socotaa. waxaan anigu runtii odhan lahaa ninka iibsanaya imika lacag iska gelinaya ha iska daayo yaan lacag iska gelinin waayo wadadii lagu baabiin lahaa ooda lagu tirtiri lahaa way socotaa. wadadii Hargeysa iyo Balligubadle runtii guddi baa deynoo wada way dadaalayeen odayaal baa ku jiray ganacsataa ku jirtay rag badan baa ku jiray. waxaad moodaa inay xoogay dardarteeda ay gaabatay. waxaanu jecelahay maamul ahaan inaanu imika dardar cusub bilowno shirar qabanno oo runtii wadadii dib loogu bilaabayaanu rajaynaynaa iyadana inaanu runtii hawsha aanu abaabul runtii ka galaanu rajaynaynaa. abaabulka markaanu galo wixii gobol ahaan aanu u soo qaadnay la wadadu Balligubadle imanaysaa ku soo socota wixii aanu u soo qaadnay iyo wixii hore loo soo qaadayba wixii cid kale laga doono xukuumad laga doono hay'ad laga doono dad kale laga doono waa meeshii laakiin dadkii wadada lahaa dadkii u soo socotay dadka manaafacaadsanaya dadka markaa runtii number 1 waxa weeye waa dadka deegaanka weeye gobolka. markaa runtii waxa loo baahan yahay intaana marka ay timaado runtii qaybteeda laga qaato ayaa loo baahan yahay. geesta kale degmooyinka iyo tuulooyinka hoostaga gobolka Hawd ayaa guud ahaanba looga ciiday qaab xasilooni ku dheehanta iyo jawi degan iyadoo bulshada gobolka Hawd caruur iyo waayeelba wajiyadooda laga dheehanaya farxad iyo reereen iyagoo iskugu hambalyeynayay munaasabada dabaaldega Ciid al-Fitriga. maxamed Shiciir Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaale TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle.